dhammaan bulshooyinka meel walba oo deeshadooyin salaami waa mar kale barnaamijka Native Somali TV ama SPTV barnaamijka anaga toddobaadkan siin ka targalnaya may kamid ee daawadayaal caawasho badan oo la kashanay dadka Mareykanka qaasatan maamiyalka iyo odayaalka ama baandhe ninka iyo naagta isqaban marwa ama sayishe aramaha ayaa daba dareeran kadib markii culimada la gudbi oo ayagana bulshadana la wadaagan xaq iyo xaq darada ay shaleeyaan sidii nin walbo waajib shil gudud lahaay dad ma jira aaminsan qofka bini'aadanka in asaga qalad ka galo ka bacdi in salaada asaga tukudooyo ilaahay inka ka ifiyo asagoo markaas leeyahay hebelo damba ka gali balse maanta hadii aan salaad duhur tukudo ama cisho tukudo ilaahay ifiya dhahe sidii asaga maskaxdis niskeyga dhaadhaxsiyo qof dambiil aan ahayn dadka inta badan diintooda qish ayaa ka buuxdo ama diintooda waa shakli sababtan waxay tahay waxa keenaysa inay diinta qeyr ay ka isticmaalaan ay ka qaataan dhanka kalena ay ka tagaan intaas kelimo ku kooban marmarka qaar may aragaasee baraha social media dad yow oo aan oo iska fartaabadayaan comment iska aayaan ama dad qaar may baheer aragaasay in ayaga midiyada in is adeegsadano qof walbo meeli soo fadhiya saka aytomo sidii asaga oo inka argudsado balse aramahaas ay toodhan iyo aramo kale ayaa siin la wadaagno rabna daawadayaal marka barnaamijka ayaa shal qaadanay kootimay ka bilaawadaane qoyska oo madmadowga inta badan iska qabaan hadii ninka xaq dara naagtiska galoy ama hadii naagta ninshe xaq dara ayada ka galoyto daawadayaal meesin koodsida in barnaamijkan si fayla iyo fahantan wana bulshadana la wadaagtan madmadowga inta badan bulshada ka socda qaastan muwaadiniinta Soomaaliyeed hadii ayaan jilac iyo jiriirba may ka bilaaway dadka Mareykanka hadii ayaan ay dhalood iyo hadii aan haynaba ay dhalood barnaamijkay daawadayaal ninka ka bilaaway hadii aad naag qabto maylakin ka baahanyahay naagta in adiga xaqshasanto ko waalida dhalay walaala la dhaladay ehila qabta qaraabi qabta naagtan markii adaga aroosayto nidaam iyo sharci iyo ka aroosti ha haato taas markii adiga naagta baahanayti wajigu ayaa lahayti sidii adiga aan helo balse markii adiga naagta helo may la koose waji markaas adiga lakin ka faladayna ayadoo han qiimayayna naagta qiimaha iyo qaayaha lata waayo ogsuntan naagaha mayway kaalan sarsare eed adduunyada lanka amaan iyo aqrab ayaa ka jiran taasna may lan baahan yahay qofka markii xaasle ay in asaga garado ama hadii adaga xaas baan lahayna maylikin ka baahan yahay in casharadaas ay tawalka ogaato qiimeynta iyo qaayaha naagaha rag higsho kale waayo naagta xuquuq ba koolata mar walbo sharaf iyo mudnaan iyo karaamikin ka baahanta mar walbo in ayada ko helo may aragaas nin naag aroosi naagtana xuquuqtiye bahansiyayna ka baadana hadana xaqshahan suuri korayn asagoo taas aan la danleeya shaqulba maqlay markii ana dantay deerto seede halka dadka qaarsho iska dhaadhacsiyaan naagta hadii ayada meel kale ku suganto mudnaan bahansiyayna ama boo inan seedayna xiliyadii lanka targalay ama naagta waajibka ayada ninka kaleta taas may sii dheertay naagooyin fara badan ayaa tabasho ka qaban niminsho waajibka ninka naagta kaleta asagoo hangududoyna taasoo ayada ka tilmaamoyta ninkan xaqshe 100% ayadoo hansamoyna taasna ayadana may la ka tilmaamo kore nasiib daro balse may kaloo sii dheertay naagaha higsho ayaga nimanka tabashooyinka ka qaban ayaa may kaloo sii ate ninkii naagta dhatiyo meeshal yaale waajib taasoo la ka tilmaami nin walbo xaduud in asaga qabo xaduudkaasoo ah shaqada naagta iyo shaqada ninka in ayada shalcata niman qaarsho ayaa naagosho ka eedeyoyan in ayaga naagaha xuquuqta ayaga kaleeyan bahan ka heloyna hadii nagato dhaqanka hadii nagato dardargelinta kalsoonada iyo dhaqashada xuquuqeed ee nin naagtis kaleeyo hasi ahaato arama qaar oo antason ku koow Ukraine iyo tabashooyin fara badan la ka qabo may aragaasee naag ninje oo lamadiyo arama macana lahayn iska qalaafeen taasoo eed saameyn weyn an kanagadaasa bulshadiyo ama badhanka qoysyo oo waalidiintiyo hasi ahaatee tabashada weyn oo nimanka ka qaban naago ayaa kamid ata hadii qalaaf yar lamadiyo saddex galo naagta oo la roorasa waalidiintiye ayadoo waalidiintana inta badan daneeyaan baahada gabartiyo sidii ayaga dhageensadan wana hantixgeliyayna sodoqsho
amaba cunugsho oo gabartiyo qaba taas ayaa saameyn bilaaran community-ga amaba bulshada Soomaaliyeed ka dhex jirta khaasatan dalka Mareykanka iyo wadanka Soomaaliya balse tabashada weyn ayaa leh dalka Mareykanka markii inta badan barnaamijyo qaas ah culimada la kocodsaday sidii ayaga aramahaas ay too anka baahiyan bulshada iyo sidii anaga naftarkayna barnaamijyadaanayto qeybo oo aniga anka qaadada lahayn maadaama mar badan aniga tabashooyin dhanka qoysaska ee sadeerin isfahan la'aanta qoysaska oo isqaban ee dalkan Mareykanka ka dhex socoto hasi ahaato mar walbo in la ka mashquulo siyaasad la ka faylanyo wax walbo oo bilaadanka daneeyo amaba ayaha bilaadanka dib u hagaajiyowna in la ka hadalo aad muhiim ah sidii anaga bulshadayna isbedel oo dhable ayaga aan la kooy lahayn haddaba may daneeyaan in aramahanayto oo kale muwaadiniinta Soomaaliyeed waalidiinta iyo dhalinyarta oo isguursado doonyan ama kuwa hadda isqaban sida ayaga ficilanka qaadadan waxyaabaha muhiimka ayaga ayaan mayway ko nin inaak hadii isqaban may lambaahinya kowtii lamado ina kalsooni isiya lama may kaloo lambaahinya qof walbo in asaga qofka kala sharaf iyo mudnaan in asaga ka helo saddex haddii dhatiyo madmadow saddex galo may lambaahinya la wadiyo in ayaga meel fadheedan go'aanna wada qaadadan sidii ayaga aan ka tashadan qof alla qofkii markaasay garsoor ayaga nagada doonya in ayaga dooradan afar may muhiim ete qofna qofka kale in asaga aan ka xadgudubna shan may beela kale si ete in ayaga awlaad markas dhalen qorshan unku booqno haddii lamadiyo midko oo qofka kala qalaafsanya sidii awlaadahan la socona lix may kaloo sii jirta gabadha in ayaga han ku fududaana haddii ayadii sayishe waxyaabo iska khalaafan in ayada ka ilaalato wal hartasho ogolsho aan hayna sida waalidiintii ama qof markaa fariintiyo ama hadalsho banaanka ka shaksheego ama eebtiyo banaanka kana naadiyo in ayada ka ilaalido may kaloo si muhiim ah naagta in ayada ku fududaato in booliiska dalka Mareykanka aan weerto ayadoo han la socdaan shuruucda ee dalka Mareykanka in yaala marar badan ayaa wararka ka heloyna in lagu qofoodo wal macana lahayn iska khalaafeen arantiyoona heer saldhigga Mareykanka deerti ilaa heer maxkamadda ee dalka Mareykanka taanka wiinta deerti taasoo hadal haayanta bilaareen dadka muwaadinkan dalka Mareykanka dhaladan cadaanka oo la yaabeen waxyaabo macana aan lahayn ayaa community-gan dadka Soomaalida ayaa maxkamadda soo rooreen ayadoo ka tilmaameen shuruucda ee dalka wadanka Mareykanka in yaal hanfaansanayna iyo waxyaabo ninkii naagta iska khalaafo qoran oo muhiim baan hayna maxkamad lan ku soo oo hanfaansanayna taasna may ka ete bulshadayna aran eed oo fajac ama basharaf dhac ama bulshadayna ama dadka waalidiintayna iyo qaraabadaba eed aan saameeyas wana dadkan cadaanka ee wadanka Mareykanka dhaladeena qaab dara nin fahmayaan may kaloo la kiyaabe hadeertan ad ideysadoyti aramahanayto in adiga koodhiyan hadii aad ata dumar iyo hadii aad ata baneen daawadayaal dadyo fara badan kala duwan ayaa la sheekaysidii may wararka ka helay dadka Mareykanka la sheenoyo oo Afrika rooga la ka dhaadhicii dadka markii Mareykanka la sheeno in ayaga naagaha milan intaliyo balse may qalad ate aramahaas in bulshada inta badan la ka dhaadhacsiyo ayadoo arintaas hayto waxba aan ka jirayna wadanka Mareykanka qof walbo qofka kale hadii asaga ka xadgudubo talaabo sharci ah la ka qaade mayna muhiim ate inta adiga wadanka Mareykanka oo qoyna wax walbo in adiga la socoto ama markaad qoyto community-ga mar walbo la xiriir waliba la dhaway maywa sidii adiga la socoto shuruucda ee dalka wadanka Mareykanka in yaala dadyo fara badan aramaha noocaas ay ka keen wana natiijo darana kala kulmeen may aragaaseen oday oo waayeel naagtis in wal macana lahayn oo booliis inka ku weerti ayadoo eed am ka araysanta ama baxaaji sheeka masiir oo kale ayadoo an qabta iyo may aragaaseen ninkii oo hadii hay ulmi hadii hay oo sayishe oo intaasoo sana isla roogeen maanta may ka dooradaas in ayada hal kool oo askar ayada un weerto kadibna duqii sharaf dhac oo maninka lanka wado ayadoo kili markaas qalbishe wixii markaas an daneeyo kili fiirsadaas taasna may la ka tilmaame sharaf dhac oo bulshada markaas san hooyati saameyn weynna ka weelada doonta haddii adiga inaan dhali ama gabar dhali ama asagna sidaas oo kale manin weeldhido ma iska dhaadhacsi kuraade way mustaqbalka dambe ilan aaday basadaan weela jirta ama aawkay aaday basaan is weela jiran
anana sayigay sidana angale waxba ma ogalna cidii sharaftiye meel ka beelas iyo cidii sharafku wadadaas dhatiyo run ahaantii bulshay barnaamijkan waa barnaamij oo run ahaantii dhowr jeerna anigana ninka codsadi in bulshada mar uun la wadaaqno balse xoogo yar fursadooyin fara badan aan wayni anagoo daneeyaanana culmada inta badan oo armaha sayto sidii ayaga anka hadalan oo anagoo sugaana iyo anka faa'iideysani hasi ahaato taas may sii dheertay qofka markii adiga damba ka galo haniska dhaadha siido markii adiga salaada tukudoytiya efis ilaahay weydiisada ilan mayl ka dhahay xaq oo ilaahay subhanahu wa ta'ala loo yiri qofka muslimka ama bini aadamka oo dhanba xuquuq ay leeyihiin iyo ninka kale iyo dulminin oo xaqiisa ku xad gudbin marka waxa arkaysaa nin salaada ku fiican oo safka hore ku jir hadana dulmiga taageera dulmiga ku faraxsan asaga dulminaya reer odayga xaaskiisa dulminaya xaaska ninkeeda dulminaysa caruurta la dulminayo madaxa dileeyahay dadka kale dulminayaan oo ummadan ay noqoto masaladaas marka mas'ala oo qofka dhinacan awaamirta ku fiican yahay laakiin xuquuqda binaadin ku dhaaf xuquuqahana xaqullahi waxa la mabniyatu bil musamaha ilaahi waxa laga yaabaa xaqiisa inuu ku cafiyo laga yaabaa hada salaatu ka weyd ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu ku cafiyo laga yaabaa هذا صوم ويس إله إنه كعفي ولا غيابه معايا وحق محضة وعبادات المحضة ومبنية بالمحي كل أنت وحي حرنتها كلية إلهي إن شركة كل من إلهي سبحانه وتعالى مشيئة دي ساكو جرتها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وحكست كسوها شركة قال قف كان شركة كل من وصو قال عند من وحكستوا كتب كيني كرا وإلهي بركو على غيابه ويغفر لمن يشاء مرك ما مشيئة إلهي كو جرتها لكن إلهي لقى ما يابو حق ابن آدم كشيء أما أظلم السيء walaalka aad xoogtay gaal aad dhacday dad aad xuquuqdooda ku xad gudubtay xaaskaaga dulmisay odagaaga dulmisay ninka madaxda ah dadka shacbigu dulmiyay kan mas'uulka ah macalinka iskuulka ardadii uu kala eexday xuquuq ayuu galay halka ku galay xuquuqdaas ilaahay ma cafinaya marka qofka ka gasha ka cafi kare kaliya ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وعلي من كان عنده مظلمه من اخيه فليتحلله الان قيامها salaadaada iyo soonkaaga iyo zakadaada la qaadanaya saas uu nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam wadaalku xaajibe qof dulmiyo iska seexday oo u maleeyaba inuu saxan yahay wakay taas oo kala iska jirta ilan adamay la tay maana ilaahay in afiye balse ilaahay may ka dhahay wax walbo ana oo galo kin afi kor balse bina aadin hadaad qaladka galo sina malakiyawna kin afiyo illa ninkaas adag afiyo marka maylan baahiya in anaga iska xishoono iska kalsoonaano wana qof walbo qofka kale eebtis in asaga asturo wana iska dayo wixii saameyn noloshadiis ku waldadaayanana in asaga iska fogeeyo barnaamijkaas yara waayay daawadayaal inaan sii la wadaago edi aan ka helay barnaamijka may ku codsade like ina saarto share dadka ka dhato sidii ayagan aan ka faa'iideysadaan waayo dadyow fara badan ayaa dulmiisanayaan haddii ayaan maamooyin haddii ayaan gabdho haddii ayaan dhalinyaro iyo haddii ayaan odayaal maalintan